markaan muuqaal soo baahiyo qofkii oo hamuunsan oo ilmaynaya oo danqanaya sidii nin walaalkii la dhashay oo ina cabdilaahi ah oo de aniga ila dhashay aad moodo ay waxay ugu danqanayaan oo ugu ilmaynayaan hada ninkan qabiilkiisa ma garanayaan cid yahay ma garanayaan waa maskiinnimo iyo Soomaalinimo bay u arkayaan يعني هيركاس كتاجن تاي أي ولد قرية صقف ولا الكي ولا الشيء تذكر سومان تانتي فربنا يصير أنا بحيث مين لا من كلام وري أحمد لده وحوي جيتي أنا سكلنا ورني كمان ولا الكي وصاحب أنا وانقرني يا بكون نيجي أنا صاحبه صايم نيجي أفتكي هذا فضل جاجا ومضى وحكوتر توعد أنا سكما كان قضية هذا ومضى عايش نسقال تذكر ومضى لطن قنية بريس كودي هافنا عنا هافنا ومضى سينية وتذكر قربات شوقون تذكر تيجان كين تشوق waayo soo dhawaada dhamaantiin saaka waxaan la soconnaa samafalay deegaanka Soomaalida Nasruddin Cabdilaahi samafalay Soomaaliyeed inkastoo in safar nahay Nasruddinow marka hore ku soo dhawow waan dhawaay walaalkii aad baan salaamayaa wariye Soomaaliyeed Axmed Awga adiga iyo baad GTM baan aad baan salaamayaa walaal iyo ummadda muslimka Soomaaliyeed iyo asxaabtaada iyo dadka ku xiran aad baan idin salaamayaa dhamaantiin insha Allah Nasruddinow waxa weeyaan waa bulshada dadkeena aad baad hadda uga warhaysaa tabartooda iyo dhaqaalahooda iyo baahiyahooda iyo hawshooda bal markaad qiyaasto inta dhex wareegaysay mujtamaca iyo bulshadeena dadka baahan ee duruufaysan iyo duruufahooda bal maxaad ku qiyaasi lahayd iyo bulshada nolosha caadiga tabaqada kale marka loo eego wallahi niyo horta jijiga waxa la dhigi jiray miskiin koris قد كور هيساوقوا مدة دير كور شيء واحد يجري مسكين كورسال يجري هذا لكن وقت حاضر كنا تاني هي هرت الطبقات دي سريع هرت ويا بعضي تذكر إنه طبقات دحى هي طبقات غصون طبقات السرنا واحد شو جاي وإلهي وقدري وحسينا وفرق ترسبة وعطت ما تان هبل عندي كور لكن تذكر طبقات دحرة تذكر إني عادي أو من نقطة لو المعلومات كودي هليهم dadkii dabaqada hoosana dadkii saddexdii waqtiba hal waqti ama laba waqti ama waqtiba aanan helin bay noqdeen marka aniyo horta wallahi ilaahay baa gargaar loo ilaahay ma aanad wax caawin karaya oo inagu si walba wax u tarno waxba hadana ma awood waxba ma tari karayno haddaan maanta wax walba aan qabanno haddana wax aynu haddana marka loo eego dhanka alle waxba ma aha maanta 10 nin awoodadu ma aha inaad wax tarto awoodina aad buu yartahay سواء قرتي ما ومضى سنة اللي كادور يتوان كادور ومضى احترانه يقلب تركو ضد ما أنت درسنا معه وضد كنتم كي دور استعمالي شن لعطنا ضد كيوري شن لعطنا يو يسكو في الليسينية وواحد باك عبر روح تعبري هذه أو اللي كنت معه عن وحوي عن وحبيه الكريموي مركها أرتي إلهي نوق جارد ما أنتين رواقع عندما إن إلهي نصيب لكن حالة هذا كنت المعبد كين هذا يكون سوانتاي والله ومد هذا الطرن marka waxaan dhihi lahayn in Ilaahay ha ka saaro Ilaahay diin aanu barino bay noo furan marka waa sida Nasruddinow inta badan baahida noocaas saa u daran ee dadkeena haysato baahida duruufaha nololeed ku xiran iyo culaysyada nololeed ku xiran marka la eego kulli adu aad bal xoog ugu tahay howlahaas oo dhan waxaad ka dadkeena u suuraysaa dhiirgelin ha u noqoto tusaalahan dadka sadaqada jecel in la baxaan oo dadka caawiyaan jecel حاجة عاونتها بالشدة مركز مقالة ضدك عاد كنت بيصير صارتو ضدك طبعا السنة ظروف السنة حالة السنة مجتمعين عاد صارتو بهيو ذا جوابها هذا هالشيء يقرب يستاجع ضدك نسكو سمعيان بلتعص التغيير قياس والله هرتواني هوريك وشو وحنقول أوجو وهذه ماتا dhalinyaradeena iyo dadkeena waalidka ee qurbaha ku maqan hadda boqolkiiba 99 dadka ummadda la danqanaya ee bariiskoodii haafna cunaya haafna ummadii siinaya waa dadka qurbaha joogun dadka deegaankeena joogay ganacsatada haddaad maalin ummadda wax uga qaado maalinka labaad way adkaanaysaa inaad dadkeeda wax uga qaado waa arrin aad u adag marka waxa weeye dadka qurbaha joogay wariga ku yiri konto ka doorar bi $50 ummadda ka siinaya $50 iyaga isticmaalay soo wax gartay ma way u heelayiin oo markaan muuqaal soo baahiyo qofkii oo hamuunsan oo ilmaynaya oo danqanaya sidii nin walaalkii la dhashay oo ina cabdilaahi ah oo de aniga ila dhashay aad moodo ay waxay ugu danqanayaan oo ugu ilmaynayaan hada ninkan qabiilkiisa ma garanayaan cid yahay ma garanayaan waa maskiinnimo iyo Soomaalinimo bay u arkayaan
يعني heerkaas ka taagan tahay ay ula danqanayaan si qof walaalkii ula dhashay dadkaasoo maanta hanti fara badan haysan lahayn maxay samayn lahayn wax ka badan bitir lahayn marka iyada way u hamuun qabaan $10 Allah ka lama xishoodaan wixii uma isku kabnaayoon ummadii wax waxtar u noqonaya uga dhignaa laakiin haddaan la dhaho maanta 100,000 baa la bixiyaa iyo 100,000 baa soo gaadhan ninkan waa wax mala'waala oo been ay ka jirto marka waxa yar uma la kabaa ummadiina wax u tarta maanta nin qurux la'aan ahaa dee oo maanta 100 riyaal ku qurxanayaa si wax u taraysaa waa dhig joojin laakiin qof dharigsan maanta wax looma qaban karo qof maanta saddexdii waqti helaya haddaan dhahno waxa weeye wax loo qaban karaa qabo shaqaysan karaa wax looma qaban karayo waayo waxan dee soo gaarayba wax saddexdiis waqti dhaafay ma laha soo aan gartama marka laakiin dadka khayr Allah siiye iyaga ka soo koobaniyo ana u duceeyo ummaduna de kale u ducaysan marka khayr Allah siiye qof walba wadan qada nasriid horta aan kugu dar waxa ilaadaa mujtamaciina Soomaalidu waa dad isku naxariista waana dad sidoo kale waa deeqsinimada eeg marka miyiga la degan yahay dadkeenu Soomaalidu jilooyinka remiga qof musaafirka iska socda وسكجل لحنا يا ودي ريريه سماه مرتجلنتي مجنجلنتي وحي ودن dadkeena waa dad xaga karaamada iyo aad ugu fiican goob dhashooyi hadda waxaan tagay cimrada tagay waxaan ku soo maraa 12 ku soo maraa حرمك حرمك haddaan ku dhoomadi aaminaysa والله $1 on leeyahay ama jabadida ku jirta hal maalin waxba kuma cunin intaan kula soo hadlay ma ku yiri awgo ninku garanaya oo saaxiibatiin ayaa meerad xaqan kula markaan qadiyay inuu igu yiri lacag kaama qaadayniyo adigana hawshaada haysa awgeed waan garanayaa iyo waxa tahay nin kale wariye Axmed la dhaho waxa weeye GTN iska lana warniga waan walaalkay oo saaxiibano waan garanayaa baan ku yiri ninkana saaxiibaan soo hayn ninka abtagaya hadaba fadligaaga iyo ummadda wax ku tarto wuxuu nus kama ka gadayo oo ma dhahayo ninkan waa caan oo la garanayaa oo sumcad buu leeyahay waxba kuuma siinayo ma fahantii oo iskama ka gadayo laakiin waxaan kugu siinayaa wiri ummadda aad u danqanaysa awgeed ayaan wax kugu siinayaa iyo taa marka laga soo tagana ninkaas aan saaxiibahan hayna waxa weeye salaad niga gaarsiyo kula soo heshiiyay ninkaana waxa weeye wanaagaan u hayana iyadana waxa weeye awgeed u kaalay buu yiri haddaan ku dhoomadi aaminaysa maalin walba oo aan meel istaagaba abadan war hooyo wax niga qaada ma noqonayso anoo soo cibaadaystay uma sidii u soo noqday iyadoo waxba iga bixin marka bal qiyaas wanaaga aad samaynayso anu de maanta wanaag uma sameeyo ha lagu abaalgudo iyo waxaad ku heshid basharka macnaha dadkaad ka heshid maalinna ilaahay qalbigayga u arkaayo maalinna hal maalinna kuma seexan cid bad wax u tartaye ee ummaddu ha ku maamuusto waxbaa tartaye waxa weeye ha lagu wanaajiyo waxbaa tartaye gaadiida lagu gado ama guriga lagu sameeyo oo daanu maanta nin dhalinyaro gaadiidna lahayn gurina meelaha ku lahayn hadana de ka waxa weeye maanta hadana alxamdulillah dad hanti fara badan haysta kan nimcaysan baanay oo ilaahay ummadii uu diray wadan meesha istaagaba waxaan u baahnaa waxa weeye wax la leeyahay war meebel baa war la tag war hooyo waxba kaga baahnaa qaada leeyahay ha maamuus inta la eegna sida lagu helay way adag maanta nin wax ku siiyay waxa ka qiimo badan ninku ixtiraam maanta hadii ano oomanaad koob biyo ay siiso iyo adoo maanta milyan isiiya way iga kala qiimo badan koobka biyaha adoo ijecel oo ii naxariisanayo hadal wanaagsan iyo walaal leeyahay siisay ayaa igala qiimo badan hanti inaad siiso maanta sawaxad gartima marka niyow arrimahan haddaan maanta dhan aan dhoo waxyaabahan aan ka arkin waan kaaga sheekeynaya waynu daalaynaa marka waxa weeye dadkeena Soomaaliyeed dad gob ah weeye wallahi billahi dad gob oo ilaahay khayr ha siiye dadnimo wanaagsan oo dun macaan weeye Allah haday meel walba joogan oo ka walaal aad baad maasantiin waa Nasridiin Cabdilaahi sanfalaheni saaka safar baan u nahay magaalada halkan insha Allah aad baan dhamaantiin salaamayna